runtii waxa la rabaa marka dhalinyaradu inay xisaabtamaan haddii doorashada dadban lagu jiro oo in kooban ay mar walba madaxda doorato sida aad hoggaanka marti uga tihiin ayaad uga noqon doontiin laakiin haddii doorashadu ay noqoto qof iyo cod waxaan aaminsanahay doorkiina inuu markaas soo bixi doono dhalinyaro sababta ay doorkiina u soo baxayso waxay tahay macnaha nambarka ugu badnaa ayaa tihiin haddii markaa fursad laydin siiyo dalkan iyo dadka wax tarayso adinka aad taqaaniin oo dhexdiina aad doorataan taasi waxay noqonaysaa yani inay qofkaas keentiri ay soo baxdo cududiina ama nambarka ugu badan dalka dadkiisa oo dhalinyaro ah darteed marka fursaddaas ayaan rabay inaan tooshka idinkugu ifiyo adinkuna ay ka faa'iidaysataan dadkeennan kale mataqaanaa yani farxad ayay noo noqon lahayd inaan aragno dhallinyaradeenii oo dalkeennii hoggaaminaysa maxaa yeelay ayagaa mudan oo dhiiggooda u soo daadiyey tan iyo berigii gumaysiga ilaa wakhtigan hadda la taagan yahay cidda dhaxanta u taagan oo amnigii gudaha ka shaqaynaysa oo difaacii cadowga u taagan waa isla dhallinyaradii marka inaan aragno markaa dhallinyaradii oo ka shaqaynaysa yani hoggaankii dalka oo ayagu mataqaanaa iska waaniyey inay tahriibaan oo badaha ay ku qaraqmaan yani ay isqarxiyaan iska waaniyey ee dalkoodii hoggaaminaya inaan aragno annaga farxadaya noo ahaan lahayd runtii taas ayaan idinka sugaynaa biidni illaahi tacaala haddiise meel aad fadhiisataan adinku aad niyad jabtaan tahriibka aad sii wadiin aniga iyo dadka idinka waaweynoo mar walba hoggaankaan idiin haynaynaa taasina dhibaatadiina ay qayb ka tahay sidaa darteed dhallinyarada soomaaliyeed maadaama dhallinyaradii adduunka maalintooda ay tahay halkana ay fadhiyaan mumahiliintii ama in kooban oo dhallinyaraha oo matalaysa dhallinyarada Soomaaliya